jallaacadii ugu horreysay oo aanu gabadh is aragnay runtii waxaa iga soo gaaray damage aad u weyn badan oo aan laga sheekayn jirin jacaylkii boojaalka loo bixiyey boojaal waxa la yiraahdaa digaaga ilmuhu dhalay maanta digaag عشي نيركتو ويديو سيدا جيل هليلا ميان كوهيلوبا شعب نورة ما أنت صدق أركتين وحمرتي ونوع فنان كوين حسين شرع عيار جعل صح؟ هاي عيار جعل هذا عيار جعل عيار جعل هاي نيو مكلمة عيار جعل كم من فانسي كرتا عيار جعل waxa la yiraahdaa abahay waagi baadiyaha joogay ciyaarta haduu sa joogin waxa waxay iska ahayd finish marka waxa la jiray shirow marka hadaad rabto codka kor u qaad gabadhu say u soo toosaan marka ciyaar jacel saas loo bixiyay markuu ugu horeysa Shucayb wad mahadsan tahay runtii mataqaadka maanta aad channel-kaaga aad ugu martiqaaday oo runtii aan aad ugu baahnayo muddo badan aanu ka wada hadalnay arintaas magacaygu horta waa Xuseen Shirc Ciyaar Jecel kulliba inta taqaana way taqaan intii aan aqoonna way baran oo waxa way maalin walba qof baa bilaadanka soo baxaya qof baa dhalanayo qof baa soo garaadsanaya aad baan ugu faraxsanahay channel-kaaga maanta inaan qayb ka noqdo waa dhowahay markuu ugu horeysa waa mahadsantahay waa su'aal horta loo baahan yahay wax badan dadku inay isweydiiyaan waxa laga yaabaa qofka isagoo heesaya la arkaa ama isagoo muusig tumahaya laakiin lama weydiin qofka micnaha fanaannimadiisu in ay waxa fanaan lagu noqdo horta fanaannimadu waa markuu ugu horeyso qofka fanaanka noqonaya oo ama musician ha noqdo ama ha noqdo abwaan ama ha noqdo heesa inkastoo Soomaalidu fanaanka u yaqaanaan qofka heesa oo kii asaga hawlgeliyay aysan fanaan u aqoon haddana waxa weeye qofka fanaanka inuu heesa kaliya ma qofka fanaanka waa inuu dhisan yahay waa inuu mujtamac dhexdeeda ku leeyahay micnaha ula yimaada maadaama la arkayo inuu la yimaado akhlaaqiyan inuu la yimaado runtii ku dayasho inuu la yimaado inuu waxa uu samaynayo ay yihiin wax macquul ah oo dadka ay ka iibsami karaan ama aan dadka dhibaato u geysan karin hadduu heesaya hadduu buraanburaya hadduu gabyayaba hadduu hadlahayaba in uu ka fogaado waxyaalaha dadka bini'aadanka ahi dhegtooda ay u xun tahay marka fanaan runtii markaasaa la odhan karaa qofku waa fanaan laakiin meel baan intaan soo istaagay baan hees muusig la igu tuumay baan intaan la istaagay baan ku heesay fanaan baa la yidhaahdaa ama hees baan rabaa inaan suubiyo abwaan hebel baaba la isii yidhaahdaa ama abwaan hebel qof baa wuxuu ku leeyahay waxa la yiraahdaa abwaan hebel baa la yiraahdaa oo haye maxad suubisay maye haddaan rabaa inaan wax sameeyo inaad caawisaan ka doonayaa buu ku leeyahay marka de wixii title anigu intaas oo hees baan sameeyay intaas oo ilaa ayaanu 14 jir heesaha bilaabay inaan sabubiyo waligayna abwaan baan ahay lagama maqal waa ka xishooda sababtu waxa weeye maba gaarin baan aaminsanahay abwaannimada la sheegayo sababtu haddii aniga abwaan la yiraahdo raggii odayaasha ahaye qaarna dhinteen qaarna nool yihiin Xadraawi iyo Cabdiqays iyo Yamyam iyo ninkii la oran jiray raggii tirada badnaad faraha badnaa ma wada tilmaami karo kulliga Maxamed Cali Kaariye iyo
maxaa la oran doonaa marka waxa weeye erey laga xishoodo weeye laakiin hadda maadaama wax kastaba bilolqan yihiin dhexda raac horta niyahow sidiisaba fanku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha balwadaha dadku ay leeyihiin waxaan aaminsanahay inay kolleyba dad baa balwad laho oo howlo kale ku jira laakiin fanku sidiisaba niyahow ma sahlana ka bixiddiisuna wax sahlan ma ahan aniguna dhowr sano fanka sidiisaba waa ka gaabsaday sababtoo daruufo fara badan oo jira dartood laakiin kolleyba qofka hadduu dee asaga laftiisa ayaa waxay ku qasbaysaa inuu wax yidhaahdo marka haddii ilaah yidhahdo adigu waxaan isleeyahay dhowr koohees bal bulshadu si ma garanaysaa inaad weli noosha ay u arkaan ayaan isleeyahay laakiin fanka kolleyba anugu hadda waxaan rabnaa inaanu iskaga dhaafno faraha ka qaadno sababto waxa weeye dee waxaa loo baahan yahay dhallinyarada inaan u bannino aan u bannina iyagana waxa loo baahan yahay boosishikan inay buuxiyaan oo akhlaaq ku buuxiyaan oo ku buuxiyaan waxa ay keenayaan wax wanaagsan inay yihiin oo wadaniyadda inaan laga weyn oo business inaan fanka loo soo gelin keliya marka arrintu saas wey waad mahadsan tahay anigu fanka sideeda markaan soo gelay abwaanimaan ku soo galay wixii adigu ka dambeeyo heesihii qayladhaanta ah oo wadaniyaddu ay igu xoojisay ayaa horta badanaa igu qasbay inaan heesana ma jeclayn runtii ilaa iyo haddana runtii sidii baan weli ahay waxaan ka jeclahay inaan heeso inaan dad soo saaro niyo anigu fanka abwaanimaan ku soo galay waagii ardada dugsiyada sare xamar la isku diri jiray iskoollada hadba aan dhigto anaa u samayn jiray heesaha gabayada iyo waxa dhan u samayn jiray marka heeso fara badan oo runtii waa isleeyahay dhowr boqoloo hees waa sameeyey laakiin kolleyba heesuhu kulligood oo dhan caan ma wada noqon karaan ama qofka markaa qaadaya laga yaabaa in uusan caan ku noqon laakiin heese fara badan oo sameeyey baa jira heesaha aan sameeyey badanaana waxaa qaada walaalkay Jooglo Shire ciyaar jecel hadda runtii waxoogaa xanuun uu ku dhacay oo xagga maskaxiinta ah adigu heesihii ugu horreeyey oo aan sameeyey isagaa badanaa qaaday heese badan fanaaniin badan baa heesayga qaado aad u fara badan oo runtii fanaaniin waaweyn sida Maryan Mursal oo kale marka way iska badan yihiin dhalinyaro fara badan oo soo saarana way jiraan aad u badan waa heeso badan baan sameeyey aad u badan runtii aan sahlanayn inta tabartay waa mahadsantahay horta niyow qosolku waxbuu ku yimaadaayo wuxuu ku yimaadaa dadku markay kula joogaan ayuu horta ku yimaadaa ama sheekay ku timaadaa aniguna markaan horta sheekaynayaba dadku waa iska qoslaan laakiin anigu dadka ka qosli isma idhaahdo mararka qaarkood waxaan is idhahdaa talow ma nooc kalaad u hadashaa ayaan is dhahaa marka niyow wallaahi wax hadda fara badan oo sheeko fara badan oo hadda aan hayo ma ay jirto anigu sheekooyin badanaa laakiin waxaa jirtay waagii aan yaraynay aan iskoolada dhiganaynay oo aad markaad aad u yar tahay oo micnaha waa xilliga maartay dugsiga dhexe laga soo baxayo waa xilliga ma garanaysaa dumarka inaad eegto ay damacu kaa galo adigu wallaahi niyo markaas adigu jallaacadii ugu horreysay oo aan gabadh is aragnay runtii waxaa iga soo gaaray damage aad u weyn badan oo aan laga sheekayn jirin jacaylkii boojaalka loo bixiyey boojaal waxa la yidhahdaa digaagga ilmuhu dhalay maanta digaaj ayaa jacayl boojaaleedkaas ay igu dhib badnaayo runtii rag badan oo hadda waqtigaas joogana ilmo boojaal baa la yidhaahdaa anigu waa ka soo gudbay laakiin waad mahadsantahay aad baad mahadsantahay halkaasa maanta aad ugu faraxsanahay inaan la kulmay Xuseen Shire ciyaar jecel insha Allah soo inka ballan qaadana janaka wax kala socodintiin heese hit ah oo aad u cusub oo wali la arkin insha Allah rajaynaya before iida koora rajaynayna inay soo baxaan marka waa maasantahay Xuseen adna waa ma Shucayb yare waa Roy Shucayb way ninka kanu waad maasantahay adiguna sida sharafta badan aad maanta waqtiga fiican iskula qaadanay aad iga casuuntay channelkaaga inaan nin qiimo badan oo sharaf leh dhalinyaraha oo dhisan oo ayaa tahay runtii waana ku faraxsana dadka noocaas oo kale lagu dayashada mudan aad u maasantahay adiga madaxa iga saaran tahay ninku dayasho